السلام عليكم أصحاب تقاليق بدن سودا وذا وولاشين سمية محمد قليف أمر لباد نيسو لابطي أصحابتي تقاليق بدن وحرجينا إنا عافماد قبتين أنا عافماد واقبا الحمد لله انتاسي إنك بدن إلها كرجينينا إن شاء الله أصحابتي تقاليق بدن وولاشين سمية أمر لباد نيسو لابطي أوني ودو فائدوين بدن maalin dhaweed waxaan ka wada hadlaynaa asxaabta waa dareemi kartiin waxay ahayd dabeesha ama umisabiyaanka saa u taqaanin maantana alxamdulilah waxyaalo kale oo kasii faa'iido wanaagsan aan iisii wadaa saas intaas inka badan waan rajaynaynaa inaan ii keenno haddii ilaahay raalli ka noqdo asxaabta waxaa niyadeeda jeclaato oo wanaagsan ama wixii iigu soo dhacaan oo wanaagsan ama xagga caafimaadka ama wuxuu doona ha ahaado waan ila wadaagayaa insha allah biidin ilaahi baari koos ilaahay dartiisa ayaan ii jeclahay inankana waxaan rajaynayaa ilaahay dartiisana ii jeclaataan ama ii jeceshihiinba maasha allah asxaabteena qaaliga badan maalin dhabeed gabdho badan ay soo waceen oo dhahin sumeeyo daawadii noo sheegto waan ku fiicnaanay alxamdulilah ilaahay daawo waa noogu dira alxamdulilah ilaha caafimaadka haya anakana dadaalka leewaay asxaabteyda qaaliga badan wax kasta oo xagga caafimaadka ku jiro ama xagga ha ahaadaan dumarkeena ama xagga ahaadaan wiilasheena ama raggeena soomaaliyeed waan ila wadaagaya insha allah waxyaalo badanna waa soo wadaa asxaabteena qaaliga badan oo hore noola sii joogto waxaan leenahay noo soo dhawaada leegta ha ka ilmaamina usii shaalgareeya asxaabtiina usii faa'iideeya insha allah biidinillah ilaahay khayr badan hanii siiyo kuwa nagu cusubna waxaan leenahay noo soo dhawaada ilaahay hanii barakeeyo waxaan leeyahay samskaraabta ileegta isheerta ha ka ilmaamina gambaleelkana u furo sifa ah u heshid waxyaalaha badan aan keenno xagga caafimaadka waa ogtihiin ilaahay inuu dhahay hal isku gargaaro maadaama aan nahnay dad islaan ah waa inaan isku gargaarnaa wixii caafimaad ku jirana waa inaan ila wadaagaa insha allah maalin dhabeed waxaan ka wada hadlaynay malabka iyo qusil hindiga qaabka uu u daaweeyo dabeesha ama uu u daaweeya umisabiyaanta alxamdulilah gabdho badanaa ku guuleysteen ilaahay ha u barakay saasi si ka wanaagsan oo calooshooda wax ka nunucsanayeen oo caafimaad ku heleen iisoo wada duceeyeen haddana waxaan rajaynaynaa saasi si ka wanaagsan insha allah inaan u wada xiriirin asxaabta qaaliga haddii aad ka heshaan ama isticmaashaan wax iskaga darantaan kumadaga hoostiina waa maanta weli stiil waxaan u wadaa gabdhaheena soomaaliyeed ayaan weli u wadnaa cashirkan waxaan leenahay soo dhawaada raggeena soomaaliyeed ayagana waan usoo wadaa ama wiilasheena soomaaliyeed nigama maqni ama niima hilmaamin soo dhawaada ha iga xumaanina weli gabdhihii ayaan ku jirnaa gabdhaheena qaaliga badan soomaaliyeed ilaahay dartiis ayaan nii jeclay xagga wiilasha xagga gabdhaha kulligiina waa nii wada jeclahay ilaahay nii jeclaado waxaa meesha maanta niigu wadaa xabaturashaad qofkii yaqaan ayaa yaqaano tanna waatana ayadoo miro ah waa isla xabaturashaad ayadoo miro aana shiidnayn tanna waatana ayadoo shiidan waa isla xabaturashaada naftigeeda waa meeshaana maxaan igu hayaa malab saafi ah weliba dukaanka laga helo diyaar asxaabteyda qaaliga badan xabaturashaad maxaa ka taqaanaa mase ma taqaana xabaturashaad waxay caafimaad u leedahay xagga caafimaadka jirka xagga dumarka walaashay qaaliyey ma tahay mid dhiigga dhibo mise caadada saa u taqaanin ceeb ma waa taqaanin caadada ilaaha noogu talagalay alxamdulilah wixii caafimaadna inaan ka wada hadalnay dee waajibna saaran waayo ma tahay gabar dhibayso dhiigga caadada ama ma tahay dhiigga caadada inta hal maalin isku aragtid asoo madoobaad ah sida dhuxushi oo kale inuu isla maalintaa kaa go ama maalinta ku xigaba kaa go ma tahay gabar gumaarkeeda xanuunaya ama dhabarka xanuunaya mise dhiigga markuu soo socdo ma leedahay wadna xanuun ma leedahay dhabar xanuun ma leedahay gumaar xanuun ama mindhicir xanuun hadday tahay jawaabtaadu haa hadday tahay jawaabtaadu caadada ay dhibayso iimaba imaado oo waan ku xanuunsadaa oo sida qof fool hays oo kale ii qabataa marka ii qabatana qof sakaraad
sakaraatul mowt hay oo kala noqdaa ma tahay gabdhaha qaarkood cadowga ku xanuunsadaan qaarkoodna ilaahay wuu u fududeeyay alxamdulilah ma tahay dhiigaada caadada ma dareemaysaa markuu imaado in uuna haddii amare isticmaashid ama always isticmaashid waxba macnaha mid aada ku arkin ama xinjir madow oo kale sida hadda cilaankeygaasi u madowya oo kale ma dareentaa ma tahay isla maalintaas uu kuu imaado bis inuu kuu ege maalinta labaad aada arkin ma tahay gabar caadadeeda gogo-eyso haddee tahay jawaabtaadu haa asxaabteena qaaliga badan aan ka wada faa'iidaysana xaabaturashaad haddaada hore u aqoonin hadda baro aada u fiican yahay waana mindaabaad waa mindaaban diini ah alxamdulilah aniga waxaa niihay waa wax diinta nabigeena noo sheegay dhirteena maasha allah alxamdulilah haddee tahay jawaabtaadu saas haddii dhiiga uu ku dhibo haddii dhiiga uu kaa gogo-o caadada ah hadduu intuu dhiiga hal maalin kuu imaado maalin labaadkii aaweysid haddii dhiigaada uu yahay dhiig oo madow ah intaba waa inaa bahalkaa isticmaashaa xaabaturashaad waa ina isticmaashaa waxaa ku isticmaali kartaa biyo kuleel laakiin waxaa kasii wanaagsan haddii aa rabta minkaada inuu dhaqmo haddii aa rabta dhiigaada nadiif inuu noqdo haddii aa rabta dhiigaada inuu guduud noqdo maasha allah uu noqdo malabkaas nadiifka ah saafiga ah weliba dukaanka laga helo diyaar waan yahaynaa lambarkiisa meeshaan igu soo qoraynaa xaabaturashaadkaas tan ayadoo shiidneen waaye tanna ayadoo shiidan waaye malabkaa waxaa ka qaadanaysaa meeshaas asoo ku jiro naftigiisa koombadaa yariista gasacaddaa yar sida u taqaanid tan qaadada ka yar oo labadeeda ah ana hadda hal weynaa haystaa tan yar adi koley kuu taala mala tan weyn anima haysti tanaa hadda kugu qiyaasaya tan oo labadeeda oo tan yarta ah waxaa ku darsanaysaa malabkaas haddii malab badan aa haysatid oo aa rabtid inaa markasta aa cuntid kan oo labadeeda oo malab badan aa haysatid aa ku darsanay ama saddexdeeda waa isticmaalaysaa asxaabteena goormee la isticmaalaa marka ma aha mar kasto oo aan nadiiftaa ma aha may markii caadada dhiiga gabadha walaashayaan la hadlayaa caadada dhiiga uu kuu joogo ayaa isticmaalaysaa markuu kuu joogo ayaa isticmaalaysaa 7 beri hadduu kugu dhici jiri hadduu 5 beri kugu dhici jiri hadduu 6 beri kugu dhici jiri sidaad hore caadada kugu soo laabanaya haddii uu hal maalin uu ahaa sheekada halkii maalin ma noqonaysa insha allah biidin ilaahay baari weliba adigoo bisinka u qabsatay saliga nabiga berbinaasta saa u sheegay markasta waa inaa adkaarta aan ku dadaalna asxaabta aan talada ilaahay saarana waa isticmaalaysaa waqtiga caadada ay kugu joogto marka kugu dhacabo dhiigaada marka hore hadduu madow ahaa safarta dambe dhiiga markuu imaado wuxuu noqonayaa guduud caadi ah marka dambena biyaa kusoo baxaya ilaa dhiigaada sidii hore kuugu soo laabto sidii hore u fiicnaa xanuunka uu kaa baaba'o gumaar xanuunkii mindhicir xanuunkii dhabar xanuunkii labalabadii wadna xanuunkii aad dareemaysa ilaa uu kaa dhamaadan kudha dhiigaada nadiif guduud uu noqonaya waa isku isticmaalaysaa marka tan ma isticmaalista tan haddaa rabta waxaa ku darsanaysaa malabku ma isticmaalaysa ayada waxaa ku darsanaya haddaa rabta biyo kuleel laakiin tan ayaa malabkii tan isku daraysaa tan shiidan ka shiidantaa waa taas saas waay tan kalena waa tan ayadana soo dhaweeya afkeeda kaas marka shiidnay waa isku darsanaysaa inta bari wixii dhiiga kuu joogo ayaa isticmaalaysaa wuxuu leeyahay wareer yar oo beenbeen ah ha u bixin waxaa jirkaada ku jiro safeynaya wuxuu leeyahay labalaba yar markaa isku isticmaashid ha u bixin wuxuu safeynaya jirkaada wixii ku jiro marka insha allah gabdhaheena Soomaaliyeed gabdho badan ayaa dhiiga dhibo caadada dhibto kolba saa u taqaanin qaarkood hal maalin ka socda qaarkood 2 maalin maalin saddexaad waaba nadiif ma loogu talagalay caadada ilaa 7 beri inay socoto 5 beri 6 beri marka uu yar tahay laakiin hal maalin 2 maalin maya dhiigaas wuu qaldan yahay marka gabdhaheena Soomaaliyeed aan ka dadaalno caadada ceeb ma aha waa wax ilaahay macnaha noogu talagalay alxamdulillah ku shukrineynaa waa wax loogu talagalay
in uu naga imaado alxamdulilah ilahana siiyo ku shukrinayna rabbilcaalamiin marka insha allah biidnillaahi baari gabdhaheena soomaaliyeed ha ku dadaalan daawadaas hana arkaan wax ay iskaga dareemaan ha iisoo sheegaan insha allah biidnillaahi baari wax xaabatu rashaad waay sikiskaa laga helaa meesha hartaa ka helaysaa waa kaas lambarkiisa tawaan igu soo qoraya kii kale ahna waa kaas marka insha allah biidnillaahi baari aan dadaano iisoo dhawaada asxaabta qaaliga badan ayaamahan waan iga soo daahay because of waa iska mashquulsanaa toobinna waan sameeya waa ogtihiin shaqo yaraan ku mashquulay cafwan walaalahey qaaliga badan iisoo dhawaada wixii kale oo wanaagsan ama wixii kale oo ka faa'iidaysana waan iisoo gudbinaya insha allah ilaahay dartiisaan ii jeclahay subscribe-ta leegta sheerta dadka nagu cusub kambaleelka ha ku dhuftaan sifa ay u arkaan فيديوغا كحيغا إن شاء الله بإذن الله باري إلهي درتي سياني جعلهاي إنك نساسا رجينا يا أصحاب تقالي قبضا السلام عليكم إلهي هني حفظه إن شاء الله أذكرتنا هالقد ذا تصبيح نساس حمل قفك إلهي تلذ صارت وحموايو إن شاء الله من يتوكل على الله فهو حسبه قبله نسوماليات هكود ذالان حبة رشاد كاس إن شاء الله واسك دريميسا ديغا نظيف وكون قنايا because of ديغا مهم وإنه نظيف نقدر ديغا دوح ماذا خلاص حتى جركو كلابتا ما في عنا قفك مذواد وصارا قفك إنه ديغا كبح هذا وفي عنده because إلها وقلت لقلوا وسق إلهي نسيه إن نقبحو oo ilaahay noogu talagal inuu naga imaado marka wasaqadaas inay kugu laabato ma fiicna asxaabta qaaliga badan soo dhawaada waa walaashiina Sumeeya Maxamed Khaliif salaamu calaykum dadaal wanaagsan hadayana lishilmaamin subscribe-ta leegta sheerta waa dhinaciina salaamu calaykum asxaabta qaaliga badan ilaahani barakeeyo